maanta kale 2009 horta aan 2009 ma dhalanbo laakiin haddaan 2009 joogi lahaa halkaas milyan waa 1 milyan oo meel la dhigayo 1 milyan oo kalena ku baashaan oo gadal hayno maalmaha dhan waa xanaaqsanaa waxaan isdhahay bitcoin ama 1 milyan tagtaa laakiin alxamdulillah maanta suuq dib u soo laabtay dhis ay ku samayn kartiin ah su'aalan rabaa tiimka oo inaan weydiiyo su'aashu waxay tahay sanadkii 2009 maanta kale bitcoin halkii dollar waxa lagu iibsan karay 1300 oo xabo oo bitcoin ah oo hadda aan ognahay halkii xabo inay tahay 120,000 wax ka badan tiimka Umaaya raba inaan weydiiyo sanadkaas hadii dib leedinku celiyo meeqa xabo oo bitcoin ah ayaa iibsan lahaydeen 2009 okay 2009 horta waxaan joogay magaalo la yiraahdo Soderham oo Sweden ku taala waana ku dhex jira IT 2009 maanta kale 2009 bitcoin waxay ahayd halka dollar 1309 lagu iibsanay Soomaa marka macnaheedu marka waxa waaye halka milyan oo bitcoin waxay joogtay $730 meelahaas $800 meelahaas marka 1 milyan aan gadalahay oo bitcoin hal xab milyan afarta meel leeyahay 22 milyan oo waay marka bitcoin ka dhanba 1 milyan afarta gadalahay halkaas milyan waa 1 milyan oo meel la dhigayo 1 milyan oo kalena ku baashaan oo gadalahayno marka magaalada Muqdisho magaalada qayb dhan aan gadalahay marka sababta hadda halka milyan oo bitcoin maanta wuxuu maraysaa marka lagu dhufto 125,000 waxay maray 125 bilyan oo dollar way halkii milyan oo bitcoin marka in short weeraan 1 milyan ilaa 2 milyan ka gadalahay wallahi xilligaas iyo hadda farq badan u dhaxeeyo laakiin hadii ay ogaan lahaa in bitcoin sidan oo dhan isku bedelayso ani ahaan xilligaas waxa iibsan lahaa $50 oo bitcoin ku iibsan lahaa markaas ileen hadda faa'iido far badan saaran halka bitcoin intaasoo waxa uu gaarsiisan yahay laakiin xilligaas maadaama aqoonta loo lahaa ee yareed dadkan aysan fahansaneen wax badan lagama fahansaneen laakiin wali waxa aaminsanaa waqti in la haysto oo laga faa'iideysan karo run ahaantii hadda xilligaas bitcoin aqoon u lahaa waxa gelin lahaa lacag gaarayso $100 maanta waxay ahaan lahayd lacag aad u far badan waxaan haysan lahaa faa'iido aad u far badan bitcoin waa lacagta mustaqbalka waqtiyada dhow waxa lagu qiyaasaa inay gaarto 1 milyan iyo wax ka badan marka taas waxa waaye Janis na soo dhaafay marka waxa rajayna Janiska hadda inay ka faa'iideysano meeshii ay maraysaa bitcoin ka raacno maanta kale 2009 horta aan 2009 ma dhalanbo laakiin haddaan 2009 joogi lahaa oo aan xilligaas bitcoin baran lahaaya wax alla waxaan lacag haysto gelin lahaa $100 ha noqoto $50 ha noqoto $1 ha noqoto wax aan dhaafi lahaa ma lahan wax kasta oo aan haysto bitcoin gelin lahaa laakiin ma dhalan maxaa horta wax bitcoin